nabad daawadayaal magacaygu Cabduqaadir Holac waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogta wararka qodobada ku jira ee aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah warar dheeraad waxa ay ka soo baxayaan qaraxyadii xalay Nugnaal sidoo kale waxa warbixin idinkaga haynaa xiisada Ethiopia iyo Masar Kenya waxa ay dhibaato u aragtaa COVID-19 oo ay xakameyn weyday sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku jira oo aad ku daawan doontaan warbixin aan idinkaga hayno Soomaalida Sacuudiga qaybaha dan barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ganacsiga Soomaalida Mareykanka qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordha oo ay kamid yihiin saadaasha hawada iyo sportska ay ku daawan doontaan waa mar kale iyo xogta wararka isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha Agoosto ee sanadka 2020 aynu ku bilownaa qaraxyo ayaa xalay waxa ay ka dhaceen magaalada Beirut ee wadankaas Lebanon mas'uuliyiinta Lebanon ayaa sheegay in baaritaanada hordhac ah ay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa shil aan si ula kac ah loo fulin wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in maada si weyn u qaraxda oo lagu keediyo dekada ay sababtay qaraxaasi Ra'iisul Wasaare Xasan Dayib ayaa qaraxa ku tilmaamay musiibo waxaana uu wacd ku maray in lagu xisaabtami doono cidii mas'uuliyadeeda qaadatay waxa uu ka hadlay maqaasiin khatar badan oo dekada ku yaala tan iyo 2014 balse waxa uu intaasi raaciyay in aanu ka dhici doonin baaritaanada mas'uul ka tirsan dawladda Israa'iil ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa aanu lug ku lahayn qaraxaasi Beirut ka dhacay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dad wali ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha qaraxa ayaa laga maqlay jasiiradda Qobrus oo Beirut u jirta ilaa iyo 240 kilomitir kuna taala bariga Mediterranean-ka madax badan oo caalamka ah ayaa ka tacsiyay musiibada halkaasi ka dhacday Ra'iisul Wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray sawirada muuqaalada caawa imanaya Beirut waa kuwa argagax leh wuxuuna u duceeyay dhammaan dadka ku waxyeeloobay dhacdadaasi sidoo kale waxa uu sheegay Boris Johnson in shacabka iyo madaxda Lebanon uu la garab taagan yahay hiil iyo hoob qaraxa ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo Lebanon iyadoo dhaqaale xumid taagan ay si kala fogeynaysay bulshada sidoo kalena jimcaha ayaa la filayaa in maxkamad ay go'aan ka gaarto dilkii ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Rafiq Al-Hariri oo la dilay 2005 isla wararka la xiriira magaalada Beirut ee caasimada dalkaasi Lebanon oo xalay ay qaraxyo ruuxeen ayaynu ku jirnay iminka waxa qadka telefoonka goordhow aan kula xiriiray wariyahayaga Maxamed Xasan oo kamida bahda TV-ga Banaadir ee magaalada Muqdisho oo jooga jaamacad ku taala magaalada Beirut ee wadankaasi ayaa wuxuu inaga warbixiyay xaaladda dhabta ah iyo wixii soo kordhay ee ka taagan iyo sida madaxda caalamku ay u arkaan iyo waliba baaqyada ay ka soo saareen amba wararka ay ka soo saareen ee dheeraadka ah madaxda wadankaasi wadankaasi Lebanon sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wadankaasi Lebanon maxamed hadii aad imaqasho waxaad naga warbixisaa wixii soo kordhay iyo xaaladda dhabta ah ee hadda ka taagan magaalada Beirut Cabduqaadir aad baa u mahadsan tahay adiga iyo teamkaaga baahda Banaadir TV kulligiin waa idin wada salaamay runtii Cabduqaadir wixii magaalada ka dhacay shalay Beirut runtii lama soo koobi karo qarax aad u weyn oo adiga saameyn weyn badan u geysaday ayaa ka dhacay dekada Beirut oo ah dekada kaliya ay leeyihiin dalka Lebanon runtii hadda hadalka weli ma la kusii hordhici karo Cabduqaadir laakiin xaalada ayaa soo yeerayo oo ka imaanaya hay'adaha amniga oo ay sheegayaan in qaraxa oo ka dhashaday hub keyd ah oo yaalay dekada Beirut sidoo kale qaraxa runtii dhimasho aad u badan waa keenay inkasta hadda oo la leeyahay adiga boqolaal ayaa ku dhimatay oo dhaawac gaarayo ka badan 20,000 oo qofood waxa waa ina ogaano waay qaraxaas wuxuu ahaay mid soo burburiyay sarihii iyo dabaqyadii iyo meelihii dhan la wada degnaayeen oo dadkii hooy u wada ahaay
dad baana jiro oo ilaa hadda xataa guryo kusoo dumeen oo la helooyo. marka cabdiqaadir oo runtii lama soo koobi karo waxa shalay ka dhacay Beirut. waa masiibo aad iyo aad u weyn oo runtii oo la filaynin oo xataa shock ku wada ahay dadka wada degan Beirut. qaraxan xataa runtii saameyntiisa waxaa laga dareemay beladaha kale oo ku wada yaalaan Lebanon. marka cabdiqaadir waxa waaye runtii waa arin aad iyo aad dadka dhan ka wada nixisa ayaa meeshan ka dhacday. dad badan baa la weysan yahay oo runtii la soo koobi karin saameynta oo leeyahay qaraxan ilaa maalmooyin kadib oo lagu sameeyo maxaa ku dhahaye baarid. waxa daawadayaashaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo kamid ah bahda TV-ga Banaadir ee magaalada Muqdisho oo ku sugan jaamacad ku taala magaalada Beirut ee wadankaasi Lebanon. waxa daawadayaal qodobo kale ay noo soo socdo oo ay kamid yihiin Kenya oo dagaal kula jirta cudurka COVID-19 balse iminka aynu eegno wargeyska The Guardian ee ka soo baxay wadanka Ingiriiska ayaa waxa uu warbixin ka qoray xaaladda Soomaalida ku nool wadankaasi Sacuudiga. wuxuuna sheegay wargeysku amba ku waramay in Soomaalida Sacuudiga qaarkood lagu guro xabsiyo waana kuwa aan sharciga amba iqaamada lagu shaqo tago aan haysan wadankaasi. wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xabsiga ay ku jiraan kumanaan qof oo Soomaali ah ayagoo la sheegay in ay ku xiran yihiin muddo sanado ah arintaasi oo aan hore loo ogaanin. sidoo kale Soomaalida halkaasi ku xiran ayaa waxa la sheegay in ay helin waxyaabaha daruuriga ah sida suuliyada, cabitaanka iyo cuntada. waxaana la sheegay amba ay ku warameen Soomaalida qaarkood in ay cabaan biyaha suuliga. dowladda Kenya ayaa sidoo kale waxa ay faahfaahin ka bixisay faafitaanka cudurka COVID-19 ayadoo uu ku sii laba kacleeyay wadankeeda. booliska wadanka Kenya ee u xil saaran arintan caafimaadka ee COVID-19 ayaa waxa shalay ilaa maanta dadka ku xireynayeen guryahooda ayagoo sheegay in marnaba aysan ogoleen in la furo suuqyada iyo meelaha kale ee loo sugu yimaado. sidoo kale Kenya ayaa waxa ay kamid tahay wadamada Afrika ee uu halakeeyay COVID-19 ayadoona haatan isbuucii ugu dambeeyay uu ku sii laba kacleynayo. وهاجك داود يلقى بيه دحية برنامج كنا نخوض جرناية إيمن كنا إيجنو حالة إثيوبيا إيو مصر ورك إيمان يلا بدو وطن إثيوبيا إيو مصر أي واحد أي تلماميان إن كلن كي أي كويا شين مجالة قاهرة وطن كاسي مصر مدحونها وطن كاسي مصر عبد الفتاح السيسي إيا أبي أحمد ونقضيه مد أنا كمر لين arrimaha laga kulmayay. sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan amba arrimaha dadka danaya arrimaha siyaasadda Ethiopia iyo Masar ay sheegayaan in ay colaad ka dhalan karto biyo xireenka Nile. arrimaha hadda taagan ayaa waxay u muuqdaan kuwa sii horin kara colaadda labada dal taasi oo isku bedesho colaad iyo dagaal sokeeye oo ka dhaca labadaasi wadan. waxa daawadayaal qaybay dambe ee barnaamijkeena isla soo gaarnay iminka aynu eegno xubinta saadaasha hawada ee barnaamijkeenan xogta wararka. muqdisho saakay waxa heerkulkeedu lagu tilmaamayaa inuu yahay 26 degree centigrade. qoraxda saaka muqdisho waxa ay soo baxday 6 iyo 11 daqiiqo waxaan la filayaa in dhacdo 5 iyo 59 daqiiqo insha Allah. magaalada Kismaayo heerkulkeedu maanta waa 26 degree centigrade. qoraxda saaka Kismaayo waxa ay soo baxday 6 iyo 14 daqiiqo waxaan la filayaa in dhacdo 5 iyo 30 daqiiqo insha Allah. Hargeysa maanta qoraxdu waxa ay soo baxday 1 iyo 10 waa 6 iyo 11 daqiiqo waxaan la filayaa in dhacdo 6 iyo 7 iyo 10 daqiiqo. heerkulka Hargeysa maanta waxa uu marayaa 28 centigrade. ahgaag daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena xogta wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. ciddu markale seega waxa ay dib uga daalcan kartaa baraha aynu ku leenahay internetka ee Twitter, Facebook iyo YouTube. tan iyo barnaamij lamid inta aan ku kulmi doono Britor waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.